wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare isla markaana ay qayb ka yihiin wasiirada xildhibaano ka tirsan Hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa soo gaaray degmada Buloburti ee gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha degmada Buloburti ku soo dhaweeyay maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxa wafdigan Buloburti ku soo dhaweeyay kusimaha gudoomiyaha degmada Buloburti Liibaan Cabdi Buruuso gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga Ismaan Geedi Cilmi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Hirshabelle Maxamed Cali Caadle oo maalmahan Buloburti ku sugnaa dhammaan wafdiga sharafta iyo qiimaha leh oo uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare iyo wasiirada la socdo ayaa maanta waxa soo gaaray gudoomiyihii baarlamaanka ku-xigeenkiisa ayaa maanta waxa na soo gaaray degmada Buloburti ay soo gaareen si sharaf leh oo qiimo iyo qadarin ku jirta ayaa ku soo dhaweynay maanta qiimo weyn ay noo tahay sharaf ay noo tahay inaan noo timaadaan waa iga sugaynay waa iga soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa wax kasta oo jirayna inay dhamaadaan haddii Ilaahay yiraahdo mudan madaxweyne sharafay ii tahay maanta inaan kugu soo dhaweeyo degmada Buloburti iyadoo socodkaankii ka horeeyay aniga la soo dhaweeyo maanta inaan adiga kugu soo dhaweeyo waxa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u maleynaa anigu ma adiga inaan ka nasiib badnay in kale ma ogaa aniga idoo buleeleer ku dhacaayo oo meel oona waxa waaye orod socdo ali soo dhaweeyay farxad iyo damaashaad looga jeeday marka aan warsado marka maanta idoo xasilan oo aan farxad iyo damaashaad lahayn magaalada Buloburti ku soo dhawow intaas kadib waxaan rabaa daan warbixin gaaban ku siiyo magaalada xaaladeedu aad ay u degan tahay wax dhibaato ah kama jiraan aad ay u xasilan tahay waa la idin sugaayay aadaan ugu mahadsantihiin dacwadeena ama wicitaankeen inaad soo ajiibteen oo adiga wafdigan awooda badan hoosaan u baaxada weyn inaad timidaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa haddaad noo timaadeen magaalada in wax badan insha Allah taala oo hadda aan rajaynaynay oo aan wali gaarin inaan gaari doonana aad iyo aad ayaan ma aragtay aan u rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabelle xildhibaan Cabdikariin Cali Nuur iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa ka mahadceliyay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay Buloburti maanta waxa noo sharaf noo ah wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo oo annaga aan ka mid nahay inaan maanta nimaado magaalada Buloburti oo ah magaalo taariikhi ah oo caan ah oo runtii taariikh weyn kulah gobolka Hiiraan inaan maanta aan nimaado sharaf ay noo tahay gaar ahaan aniga sharaf ay tahay inaan imaado markii ugu horeysay gudoomiyaha gobolka lee magacaabay inaan imaado degmada maxaa la yiraahdaa Buloburti reer Buloburti waa idinka qabnaa soo dhaweyntiina sharafta leh oo qiimaha leh waxaan rajaynaynaa insha Allah taala maalmaha soo socdo sidoo maaragtay wasiirka uu sheegay isku soo dhaweydkii isku soo jiiditaankii in anagana aan si daba galno oo wax kasta aan ku dhameeyno maaragtay xalu mastuur in la isku dulqaato la isku wada imaado wada hadal wax kasta in lagu dhameeyo rajaynayna hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa in maaragtay wax kasta ay ku dhamaan doonaan sida reer Buloburti ay rabaan hadii Ilaahay yiraahdo Buloburti waxaan ku yaqaanay xilligaas dad akhyaar badan wax garad badan dad nabada jecel dad ehel sharaf ah oo aad u jecel oo sheekaysta oo kaftama casirka marka la joogo saajidka lagu dukado isugu yimaad biirtooyinka maqaayadaha iyo hoteelada ka sheekayso kaftama oo isjecel gacmaha haysta ayaan ku yaqaanay inkasta oo birahmaad baan iska dhacay Soomaaliya dhamaanteed afka ku habsatay oo dadkii ma taqaanaa xoogaa isbedel ka dhacay dhibaatooyinka jira awgeed waxaan leeyahay haddana Buloburti sidii ay ahaan jirtay inay ma taqaanaa maanta ku soo noqotaan rajaynayaa meesha waa la degan yahay waana la joogaa waxa loo joogaa kol wada garan kartaan bariyahan wax baa dhagan ku soo dhaadhacayay waxa loo baahan yahay in tanassul banayso sameeyo ugu dambeyn madaxweyne Maxamed Cabdiwaare ayaa ka hadlay ujeedka safarkooda waxa uu ballan qaaday in wax walba ay ku dhamaan doonaan rabitaanka reer Buloburti isla markaana cidna aan la qasbi doonin waxaan u badannahay dowlad goboleedka Hirshabelle dadkii wafdiga u yimid wixii aan anagu halkaan u nimidna hadda isu sheegi mayno maamulka baa naga koreeya dadka hadalkeenu oo ku wajahan yahay waa dadkii ama airportka nagu soo dhaweeyay ama naga maqan oo mataqaanaa naga maqan dadkaas way dadka hadalkeenu muxuu ahaay oo ku wajahan yahay laakiin waxaan rabaa maadaama hadda social media iyo fariintaas ay gaarayso
magaaladan badankeeda samafalka haddii la yiraahdo maraa waxa jirta cirka mooga dhulka aan wax loo soo marsii jirin hadda xoogaa waaba dhaantaaba xoogaa waa dhaantaa magaaladaas go'doonka u ah dadkii ku askaystay annagu haddaan Hirshabeelle nahay inaan ayagana abaabulno dawladdeena abaabulno ciidamadeena hiil walaalo walaalaheenna aan kaashanno waxaan la qaban karna aan la qabanaan ku dadaalayno runtii wax badan la qabtay nolosha dadka wax badan baa laga qabtay samafal badan baa la qabtay xataa mashaariic fara badan oo horumareedina la sameeyay kuwa kale biidnillaahi tacaala hadday noo qorsheysan yihiin meel fiican bay taladu tiilay annagoo isle ama saasi dhaantaan oo dadka taladooda ku soo gelisaan ee gacantooda soo gelisaan oo aad niyad wanaag dawladda iyo deeq-bixiyaasha uga heshaan ayaan waxaan isniri golo degaan magaaladan ama loo sameeyaa waxaan maqli jiray wax badso wax beel ay leedahay council oo aan dhisannay iska dhaafe xoogaagii yaraa oo aan isku kabkabaynay waxaan halis ugu jirnaa inay naga kala daataan waxaan halis ugu jirnaa dadkii walaalaha ahaa oo isla deganaa oo intaasoo dhibaato u adkaystay inay kala irdhoobaan imaatanka wafdigan ayaa sidii loo xalin lahaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay magacaabista gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habi RTN TV Buulaburte